من ربك ما دينك ما كتابك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من عدوك الشيطان. cibaadooyinka ilaahay subxaanahu watacaala loo jideeyey aad bay u fara badan yihiin. waxaa ka mid ah cibaadooyinkaas salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu salliyo. waxay ahayd haweeney saalixad ah, waxay mar kastoo ku sallin jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam. mar kastoo tilaabo kastoo ay qaado waxay ku sallin jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam. muddo dheer kabacdi haweeneydii waxaa guursaday ninkaas mu ahayn nin caalim, mu ahayn, wuxuu iska ahaa nin diinta si fiican u haysanin. markuu guursado gabadha ayuu ku arkay arrimo cajiib, ayuu ku arkay gabadha markii hal meel ay wada joogaan. gabadha markastoo waxay ku sallin jirtay nebiga. wuxuu dhibsaday gabadha markastoo waxaanay akhrinayso. markuu dhibsaday ayuu u tagay nin saaxir ah. ninka saaxirka ayuu ku dhahay haweeneyda markastoo wax ayay akhrisaa, marka waxaan ay akhrinayso ayaan runtii dhibsaday. marka wuxuu dhahay waxaan ku siinayaa alaab, ayaan ku siinayaa alaabtaas guriga gee. guriga markaa geyso haweeneyda inay furtaa la rabaa. hadday furto sixirkaas aan meesha kusoo riday haweeneyda wuu qabanayaa. ilaahay subxaana watacaala fadligiisii ninkii markuu keenay alaabta guriga, markuu keenay haweeneydii waxay u maleysay ninkeeda inuu u keenay hadiyad. waxay damacday inay furto. markay damacday inay furto way furi wayse. maalintii labaad ayaa haddana isku dayday inay furto. markay furaysay waxay ku sallisay xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. ilaahay subxaana watacaala wuxuu qoray sixirkii meesha uu kusoo riday inuu u bedelmo dahab. runtii haweeneyda way faraxday markay aragtay dahabka. ninkeeda ayay u mahadnaqday, waxayna ku dhahday waa mahadsan tahay yaa zawji. runtii ninkii uu la yaabay, asaga wuxuu ogaa meesha waxa lagu soo riday inuu sixir uu yahay, balse haweeneyda markay furtay waxay aragtay dahab. runtii ninka aad buu la yaabay, wuxuuna ogaaday inuu dembi uu ku dhacay. ilaahay subxaana watacaala ayuu u toobad keenay, wuxuuna ogaaday salliga inuu leeyahay faa'iido weyn.